wanaagsan galab wanaagsan waa qalanjeedin salaamaysa magaalada Paris oo ka hadlaysa xaaladda magaalada isbedelka weyn ee ka muuqda maanta waxaa dib loo furay dhammaan restaurantiyadii magaalada ayaa la furay qorax aad u fiican ayaa magaalada ka jirta hawo fiican ayaa ka jirta sida arkaysaan magaalada way isku furantay tartiib ayay maalin dambeys u soo kabanaysaa maadaama muddo 3 bilood lagu jiro xayiraadihii COVID-19 isbedel weyn ayaa socdo sida arkaysaan marka hore galab wanaagsan ayaa idin leeyahay meel kastoo caalamka joogtaan waxaan rabaa bal inaan ogaado waa sidee xaaladda magaalada Paris waxaa dib u furmay restaurantiyadii magaalada iyo laakiin isbedel kale ayaa ka jiro ka duwan kii hore isbedelkaas muxuu yahay gudaha lama galaayo baararka hadda baarkaas ay iga soo horjeeda oon laamigan gudbaya baarkan gudaha lama galaayo banaanada ayaa la soo baxay sida arkaysaan dadka qofka markuu fariisanayana miiska waa la dhaqayaa qofka markuu soo galo halkan waa farmasiga weyn farmasigan wuxuu gadayaa waxaan eegayaa bal waxyaabihii la weysanay gacnaha lagu masaxaayo iyo kuwa gacnaha lagu tirtiraayo hadda caadi wax walba ku soo noqdeen sidii hore ma ahan sanka maaskadii sanka lagu xiranayay waa tanaaway taalaa baakadkii waa 31.99 waxay ka dhigan tahay 32 euro meelahaas waaye iyo bahashii lagu dhaqaayay gacanta wax kasta way yaalaan wax kasta waxaa lagu leeyahay disponible waaye waa way yaalaan marka baararkiina markaas waa la fadhiyaa dadkii dibadda ayaa loo soo baxay baararkii marka waxaan rabaa inaan eegno bal baararka kale sidee u shaqeynayaan isbedelka ka muuqda baararka jardiinooyinkiina waa la furay dib ayaa loo furay marka waxaan rabaa sidee tahay magaalada dadka aad ay u faraxsan yihiin markii loo ogolaaday restaurantiyadii in la furo baararkii waaweynaay awal lama ogoleen hadda laakiin waa la ogolaaday waxaa loo ogolaaday kulaylihii ayaa la galay xanuunkiina waxaa leeyahay boqolkiiba wuxuu hoos u dhacay 38 inka badan isbitaalada dadkii la geyn jiray way yaraadeen lagu leeyahay 38 dadka isbitaalada ka baxay boqolkiiba 87 ay maraysaa يعني waxaad dareemi kartaa inay aad xaaladda u soo kabatay u soo fiicnaatay magaalada aysan ahayn sidii hore marka waxaan rabay hadda baaran ka soo gudbay baarar kale oo badan oo xaafadda ku yaalo maadaama maanta la yiri baararkii dib ayaa loo furay waxaan isleeyahay soo eeg baararkii soo fiiri marka si aan u ogaano xaaladda maalinba maalin ka dambeysa isbedelka magaalada ka muuqda ayaa rabnaa bal inaan eegno xaafadan deganahay xoogaa waa xaafad aad yacni ugu badan yihiin restaurantiyada iyo baararka ku badan xoog ugu badan waxaa ku badan dadka waddanka iskalaha ku badan markaan saan leeyahay waad fahmi kartaa meelaha ajaaniibta ku badan yihiin waxay leeyihiin ayagana dhaqankooda gaarka ah restaurantiyadooda gaarka ah dukaamankooda gaarka ah magaalo kasta xaafad kasta waxay leedahay waxyaabo u gaar ah oo cunooyinka ay ku badan yihiin dadka meeshaas degan marka waxaan idin leeyahay galab wanaagsan meel kastoo caalamka joogtaan waa Khadiija qalanjoodin salaamaysa Paris idinka salaamaysa oo idin le galab wanaagsan baararkii gudaha waa la joojiyay هذا بارك يعني باش ناس وايد
asagana gudaha lama gelaayo, dibadda unaa la joogaya. marka maxaan ka baranay intuu jiray 3 bilood xayiraadda magaalada ay ku jirtay. waxaan ka baranay dadku inay aad yacni qalbi jab weyn ay qabeen, dadku niyad jab weyn ay qabeen, sababtoo ah guriyihii 3 bilood la fadhiyey. guriyihii marka 3 bilood la fadhiyey niyad jab weyn ayaa jiray. haddeetaan magaaladii way furfurantay. hadda shalay iyo daraad waxaa jardiinooyinka ayaa dib loo furay. shalay iyo daraad hiliblayaashaa la furay. waxaa la furay meel kasta oo dadweynaha muhiim u ahaa ayaa la furay. magaalada dadka aad ayay usoo buux dhaafiyeen. mar kasta waxaan jecelahay ama aan jeclahay inaan ka faa'iidaysataan jawiga magaalada Paris, inaan idin kala baro xaaladdan jirta aawadeed. barnaamijyo kalena waa idiin soo wadaa insha Allah, documentary ah oo aan kaga hadlayo taariikhda Soomaaliya, taariikhaha waddankan, waxyaabaha uu waddankan caanka ku yahay. hadda midkaan restaurantii waa ag maraayo iyo hotel, marka waan arkaynaa asagana. hotelkan restaurantigan gudaha lama geli karo. waxaan leeyahay xanuunkan jiro aawadiis gudaha lama gelaayo. banaanka la jooga. hadda kan dib looma furin, sababta ma aqaan dib looma furin. restaurantigan weyn dib looma furin, kan ku xigaa la furay. dadka banaanka ayay joogaan. dadka dhan banaanka ayay joogaan. marka isbeddel weyn ayaa jiro oo yacni ganacsiga dib u soo noqonayo. restaurantiyada waddamadan waxay ka mid yihiin waxyaabaha oo dalka uu leeyahay dhaqaalaha ka soo galo, because waa dad aad u isticmaala baararka waaweyn oo caan ku ah. magaalada Paris waxay caan ku tahay restaurantiyada waaweyn ayaa caan ku tahay. qorax weyn ayaa hayso, qorax badan. marka waxaan rabaa cadceedan inaan yaro istaago haddii Ilaahay yira. cadceed fiican ayaa jirta. magaaladana sidaas ayay u shaqaynaysaa. baararkii iyo wixii oo dhan ayaa shaqaynaya. halkaas waa baar. banaanka ayaa loo soo baxay. marka jawiga aad ayuu fiican yahay maanta. jawi fiican ayaa jiro. jawigaasoo ah maxaan ku yiraahdaa inay dadka xiiseynayaan maadaama lagu jiro waqtigii fasaxyadan ay soo dhow yihiin. muddo dheer 3 bilood lagu jiray COVID-19 uu socday, xanuunadaas ay jireen, cabsi badan ay jirtay. laakiin aniga waxaan ka mid ahay dadka inta badan soo baxayay magaalada oo banaankeeda u socday. waan soo bixi jiray 2 maalin meelahaas, 1 maalin guri ku jiri jiray. inta badan banaanka u soo bixi jiray. guriga 3 bil laguma jiri karo, because oxygen-ta hawada lagama maarmo. hawada waa muhiim. galab wanaagsan ayaan leeyahay mar kasta meel kasta caalamka joogtaan. waa qalanjo idinka salaamaysa magaalada Paris. waxaan soo eegi doonaa bal meel kale sida aan jawiga u aragno. jardiinooyinka iyo meelahaas dadka aad ugu badan yihiin. Paris waxay ahayd magaalo dalxiis. maadaama ay ahayd magaalo dalxiis, isbeddel ayaa ka jiro. hadda waxay ku soo aaday waqtigii dalxiiska la imaanayay magaalada Paris. marka si ay u hesho waddanka
dhaqaale u soo gasho waa inay ka faa'iidaystaan ay furfuraan magaalada marka dawladda way ka fikirtay arrintaas si loo soo kabo dhaqaalihii si loo soo kabo dhaqaalihii dadka ayaa maxaan ku idhahdaa loo furay I think dadkii waddanka xuduudaha inaan la furin aan u malaynayaa xuduudaha lama furin waxyaabo badan waxyaabihii gacnaha lagu dhaqay wax dhan olol waa la keenay nadaafadda farmasi waa halkan farmasi مسحادك meelaha oo lagu mamasaxay gacnaha iyo kuwa gacnaha lagu dhaqdo waxa soo dhawaay qiimihiisa ina ku yaalo dhammaan farmashiyaashii loogu talagalay ay socdaan qorax badan ayaa ka jirta Paris maanta shalay daraad ilaa toddobaadkan cadceed fiican ayaa ka jirta maadaama aan rabay baararka inaan ogaado inay furin kale baarkan wuu xiran yahay waa meel weyn waxaan way isku diyaarinayna u maleynayaa baarkan aad ayuu u weyn yahay baar weyn marka wuxuu isku xiran yahay gudihiisa I think iskuma diyaarin inay wili diyaarsaneen u maleynayaa maadaama markay diyaar garoobaan banaanka la dhigaa banaankooda ma yar ma garanayo kale ma fahmin waxaan rabaa ana galab wanaagsan marka la ayaan kulanti wanaagsan baararka yar yar way iska furan yihiin sidoo kale baararka waaweyn dhaqaale fara badan ayaa waddanka soo geli lahaay marka dhaqaalahaas maadaama 3 bilood dhaqaale xumo waddanka hoos u dhacay dhaqaalihii waddanka hadda restaurantiyadii iyo meelihii dhan la furay I think ina hoteeladana ay furan yihiin qaarkood sababtoo ah baskaana rabay inaan raaco laakiin markii xigaan raaci doonaa kan kale fiyo hadii la yiraahdo waxaa idin leeyahay galab wanaagsan waqtigan wixii ka bilaabay basaska aad looma raaco waa waqti banaanada la soo fariistay jardiinooyinkii meelahaas la fariistay marka maanta dadka aad ay isugu soo baxeen intii aad ay soo baxeen waxay xiiseynayaan banaanka iyo cadceedda iyo hawada isbedeshay Yurub sida ogtihiin waa magaalo qabow maadaama magaalada ay qabowdahay inta badan ay qabowdahay magaalada marka waxay sameeyaan markii soo gaaro waqtiyadan oo kale banaanka ayaa loo soo baxaa waxa laga faa'iideystaa cadceedda waddanka ayaa laga faa'iideystaa ilaa hadda 10 ayaan soo maray xaafadda 10 baararka ayaan u guurgalayaa baararka si u shaqeynayaan daba ka dhacay xaafaddan daba ka dhacay meel ayaa gubatay ilaahay noo saqiro marmar waxaa iska gubto ilaa halkaas soo socdaan dab weyn inaan jeclahay inaan soo eegaan rabaa dabkaas bal xaafada meel gubatay kale kaas in qarxay
gurigaan aan taaganahay gubtay geeska gubta umaleynaa gurigaasaa gubtay gurigaasaa la korayaa xaafadsaa gubatay aan ka dhaqaaqa meesha ilaahay saqiro marka la galab wanaagsan ma jeedi yaa ku jiro horta galab wanaagsan asxaabta meel kastoo joogtaan muhiimadda barnaamijkan galabta aan u soo galay waxay tahay dabdamisyo badanaa xaafaddan soo galay waa meelaa gubatay galab wanaagsan markasta waxaan jeclahay jawiga inaan soo eego marka maadaama beryahan waxaan ka sheekeynaya barnaamijyada dabajooga macdonaldkii dib ayaa loo furay banaankiisa lasoo fadhiistay dadkii oo dhan aan soo baxay gudaha laakiin lama gelaayo halkan waa macdonaldka gudaha laguma jiro soo ma arkaysid cuntaa dalbanee markaad dalbatid markaad dalbanaysa gudaha lagu gelinayaa waa dalbanaysaa safaa gelaysaa sida hadda dadkan ka muuqato meesha fadhiyo cuntadooda meesha bannaankaa loogu keenaa ma la gelaayo gudaha kii qashinka lagu ridayo macdonaldka bannaankaa lasoo dhigay maadaama gudaha aan waxba lagu samaynaynin bannaankaa lasoo dhigay gudaha waa la diiday in la galo gudaha cunto in lagu cuno waa la diiday in wax lagu cabo waa la diiday marka dadka bannaanka ay soo fadhiistaan gudaha qofna kuma jiro saf lee gelaysaa safka markaa geshid hal qofaa loo gelayaa marka saf geshid waa dalbanay markaad dalbatid bannaankaa istaagay waa lagu keenaa cuntadaada gudaha ma jirto marka waa la fududeeyey hawsha waa la fududeeyey si dhaqaale loo helo isbeddel dhaqaale xumo ayaa ka jirtay ee hoos uga dadka u dhacay baarkaas ma furan yahay bannaankaa lasoo wada istaagay laakiin gudaha waxba kama jiraan markaa intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa insha allahu tacaala bas ayaan rabaa xaafaddan inaan ka qaato ama inaan lugeeyaan ka jeclaan lahay waxa waaye 3 stop tigidhka waa haystaa oo lagu raaca bisha basaskii tareenada laakiin lugtaa ka jeclahay inaan lugeeyo waa iska lugeynayaa yaa ubax gadanaya ubaxyada xataa waa la joojiyey hadda dib baa loo soo celiyey ubaxyadii sababtoo ubaxyada waxaa laga baqaa in xanuun ay faafiyaan sushi aa la dhahaa restaurantigaan isagana waa la furay ila eega magaalada Paris Soma ila eega ila daawada barnaamijka waxaan leeyahay ila daawada isbeddelka ku dhacay maanta waxa cusub baa moogtahay maalinba magaalada Faransiiska magaalada Paris maalinba waxbaa cusub maanta waxaa cusub restaurantiyadii ayaa la furay dib loo furay oo kafeega iyo cuntada iyo waxyaabaha kala duwan cabitaanada laga cabi jiray iyagoo waddanka ay ku xiran yihiin inta badan dhaqaalahooda iyo caan ay ku tahay magaalada Paris restaurantiyada marka waxaan rabaa inaan lugeeyo xoogaa
galab wanaagsan mar kale waa idin salaamaa. Salaan waxaan salaamullahi walaalkii qaal waa ku salaamaa sidoo kale waa ku salaamayaa hadda cabdisalaan reer faransa waaye soo dhawow baariis kale waa kala taqaanaay xaafad wax ka baro xaafad si fiican u taqaanaa kale waa imaaday yaa inkastoo reer gobol aad tahay haddana baariis inta badan waa timaadaa soo dhawow waa ku salaamaa cabdisalaan iyo dhammaan asxaabta meesha ku jirta yaa kaloo ku jiro fartuun maxamuud cali asxaabta ku jirta waa fartuun salaamayaa iyo dhammaan asxaabta kale ku jirto maadaama qoraxa ay hayso indhaha qoraxa iga hayso marka taleefanka qoraxu ku dhacaa markuu qorax ku dhaco saani wax looma arkaayo iftiin badanaa ku dhacaya telefoonka ya meelihii yaraayo ganacsigii yaraayo halkaasoo kale meelaha yaroo dhan way iska furfuran yihiin meelaha yaryar way iska furfuran yihiin waa barnaamij aan ugu kurgalaya xaaladda dalka Faransiiska magaalada Paris jawiga waa sidee jawiga waxaa cusub ya dawladda go'aan ay gaartay si looga faa'iideysto waqtigii kuleelaha oo soo galay dadka si uga faa'iideystaan maanta waxaa cusub iyadoo beerihii la furay jardiinooyinkii iyadoo maanta restaurantida la furay hore waxaa loo furay jardiinooyinkii loo furay maantana waxaa la furay baararkii laakiin baarka gudaha lama galaayo waa banaanka waa fahmi kartaa banaanka waxa loo yiri si loo kontrolo gudaha hadii la wada fariisto awal banaanka jecel yihiin dadkan markii kuleelaha jiro banaanka la soo wada fariista laakiin hadda waxaa gudaha loo diiday in xanuunkaas uu dadka uu isku gudbin maadaama gudihii daaqadihii ay ku yar yihiin daaqad saas leh laga albaabo waaweyn uu leeyahay baarkaas hadda soo jeedo kale banaanka dadka banaankii joogaan dibaa loo furay gudaha laakiin lama galaayo marka laamigana inaan gooyo kadibna lugeeyo lug kale ii sii harsan baska inaan xag ka soo raacay ahayd marka waxaan ka doorbiday inaan lugeeyo lugtu waa caafimaad hadda baska wuu taagan yahay laakiin ma rabo inaan raaco waan lugeynayaa waan lugeynayaa hal istoobaa ii dhiman saddex istoobaan soo socday hadda mid kale ii harsan baska aan qaato waaye maanta maxaan ka hadlaynay wakaas restaurantiga muslimiinta ay ka cunteeyaan iyo dadka kaleba caadiga ah waxaa la dhahaa restaurant Istanbul kabaab wakaas uu furan yahay banaanka awal waa la joojiyay awal restaurantigaas kale iska furan yahay mid kale shiinees oo ku degan la vente al dhahaa savoir du la vente Chinese kale kaas kale waa bistro al dhahaa kafeega iyo waxaas ku gadaan waxooda dhammaan way salaamaya just maanta waxaan rabaa in restaurantida si loo furay inaan ogaadaan rabay waan soo eegay jardiinooyinkan waan tegi doonaa barnaamijkan mid ku xigo jardiin weyn oo xaafadeedaan tegayaa dadka balsaawo aragtiin dadka si iskugu soo baxeen oo ay u cadceedsanayaan magaaladu way shidan tahay Paris saa ogtihiin Paris waa magaalo dalxiis waa magaalo qaali ah oo waxooda cuntada wax kasta waa qaali hoteeladu waa qaali
hotel waxaa arkaysaa 300 500 euro waxaa arkaysaa hoteelada qaar waa qaali marka waad dareemi kartid magaalada markay tahay magaalo dalxiis inay qaali noqonayso haddana Paris waxay ka mid tahay meelaha aadka u qaalisan anaga waa iska deganahay waxaan la mid nahay maciishadaas qaaliga ah magaalo kasta oo qofka uu degan yahay oo Faransiis ka tirsan hadda magaalo oo taajiriinta degan tahay cuntadaada waxaa dhan qaaliga kugu noqonaysaa qaaliga ku gadanaysaa haddii aad degan tahay magaalooyin oo dadka xoogaa magaalo aan business ku badnayn oo businesskeeda hooseeyo wax business saas lahayn يعني dhaqaale badan lahayn يعني waxay noqonaysaa magaaladaas magaalo aan dhaqaale lahayn oo wax dhaqaale aan soo galin xitaa dadka oo ajaanibta oo soo galootiga qaxootiga camal caawinaad fiican kama helayaan sababtoo ah dhaqaale badan ma leh magaaladaas shaqooyinkan way ku yaraanayaan marka maadaama ay saas tahay Paris waa iska fahmi kartiin maadaama ay tahay magaalo dhaqaalaha ku badan yahay magaalo business ku badan yahay restaurantigan waa mid kale oo yar isagana waa u jeedin dibadda loo soo baxay gudihii cilmi gudaha ma gelayso gudaha lama geli karo just banaanka la gudaha inta ma jirto baarkan waa xiran yahay ilaa amar dambe baar ma ahane waa hotel waaye hotelkan hoteelada wuxuu ka mid yahay qaaliga asagana wuu xiran yahay baabada loo xiray muddo dheer uu xiran yahay 3 bilood I don't know sababta hoteelada kale waxaan u maleynayaa qofka in la baarayo hotelka hadduu qofka uu xanuunsan yahay inaan laga kireynayna u maleynaa hoteelada qaar inay qaar furan yihiin u maleynayaa inta hoteelo aan arkay way xiran yihiin marka waxyaabaha hadda idinkaga warramay waxay ahayd يعني magaalada Paris oo kale waa sidee dhaqaalaheeda maadaama muddo dheer ay xirneed isbeddelka magaalada dhaqaalaheeda marka magaalo dhaqaalaha aad ugu badan yahay maadaama ahayd magaalo ganacsi magaalo dalxiis isku jirto dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka soo galaa businesska iyo dalxiiska maraa waxaan geey doonaa turafeelka meesha oo sarta dheer bahasha birta dheer oo caanka ay ku tahay magaalada Paris dalka Faransiiska kaas ayaan geey doonaa baski kii hore iga soo aan ka haray kii labaad socdo inta soo lugeenaya sokorta ka gubanayso cholesterol ma yeelanaysid oo subag ma yeelanaysid nadiif ah noqonaysa wadnahaaga jirkaaga aad u shaqeynaya meeqa soo lugeynaa ilaa meeqa kiiloomitir ilaa waxaan lugeynaa 10 kiiloomitir waan soo lugeeyay intaan live soo gelin ka hor ayaan soo lugeeyay marka barnaamijka waxaan jeclahay inaan soo gabagabeeyo haddii la yiraahdo intaas ayaan barnaamijka soo gabagabeynayaa qaybta hore ayaan soo gabagabeynayaa kan iyo kulankeena dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo waa qalanjoo idin leh galab wanaagsan iyo mar kale isku soo noqosho wanaagsan